qalab kan caafimaad oo hay'adda International Relief Foundation ku wareejisay cisbitaalka Forlanini ama Lazareti oo qaabilsan daaweynta cudurrada dhimirka waraabowga iyo TB-da ayaa waxa isugu jirtaa sariiro joodarayaal iyo qalab caafimaad oo ah adeeg cisbitaalka u baahna xildhibaan Shariif Maxamed Sidi oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka ahna madaxa guud ee hay'adda qalabkan caafimaadka ku wareejisay cisbitaalka ayaa waxa uu sheegay in qalabkan wax badan uu tari doono bukaanada cisbitaalka jiifa waxaana intaasi uu ku daray in bilow fiican ay tahay laakiin qorshahoodu uu yahay in kaalin fiican ay ka qaataan horumarka cisbitaalka qalabta aan u deeqni isbitaal Forlanini oo loo yaqaan Lazareto isbitaalkan horta isbitaal taariikh leh waaye gaar ahaan xagga dawladda Talyaaniga waa isbitaalka ugu weyn oo Soomaaliya laga dhisay waagi isticmaalka dawladda Talyaaniga aad iyo aad ay u xiiseeysaa mar hore ayaa la dhisi lahaa isagoo dhan oo la nidaamin lahaa ila duruufo ayaa jira fara badan idinka dhamaantiina waa ogtiin shacbiga waa ogyihiin dawladda waa ogtahay duruufahaas ayaa joojiyay ma ogyahay mar hore la dhisi lahaa hadda deeqda aan siinay waa deeq iska yar oo bilaaw waxaa jiri doontaa deeq lamaad deeq saddexaad hadda waqtigan xaadir ananka waxaan daneynaynaa wax la yiraahdo labrosi jiradaas ayaan daneynaynaa iyo dadkan maskaxdooda aan fiyoyn agaasimaha guud ee cisbitaalka Forlanini Dr. Faadimo Cabdi Macow ayaa ka mahadcelisay qalabkan lagu wareejiyay cisbitaalka iyadoona dhinaca kale sheegtay in cisbitaalkani uu u baahan yahay agab caafimaad oo intaasi ka badan Bismillahirrahmanirrahiim anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka Forlanini waxaan maanta halkan isugu nimid inaan ka gudoono International Relief Foundation alaabo isbitaal ay noo keeneen alaabahaasoo ay ka mid yihiin sariiro iyo joodariyaal iyo alaabo nadaafad iyo alaabo kale oo medical supply sida iyagoo noogu deeqay oo isbitaalkan ugu deeqay macaawinadaas sida awgeed annaga hadaan maamulka isbitaalka nahay aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa Ibrahim Aadan Maxamed telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.